bilowne dagaalkii maanta ka dhacay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdishakuur Cali Mire iyo sidoo kale kulanajiis oo isugu tagay Mahasalaad iligna ka jabiyay kulankii maanta ee xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ayaa waxa ka dhacay buuq lagu sigtay in gacanta la iskula tago qaar ka mid ah xildhibaanadana ay isfiiraan kulanka ayaa waxa lagu ansixiyay jadwalka doorashada guddoonka labada aqal wuxuuna dhacay xilli laga cabsi qabay in xildhibaano taageersan Villa Soomaaliya ay isku dayaan inay joojiyaan si doorasho dib loogu dhigo taas oo aan dhicin balse laga sii gudbay hase yeeshee markii uu soo dhamaaday kulanka ayaa waxaa dhacay buuq ay abuureen laba xildhibaan oo qaraabo la farmaajo kuwaas oo kala xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire iyo Cabdullaahi Kulanajiis labada xildhibaan ayaa la arkay iyaga oo ku buuqaya kursiga guddoonka gumeel gaarka ah ee labada aqal taasi oo sabab u rabtay in gacanta la isku qaado kaamirooyinka warbaahinta ayaa qabatay xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo u fafakanaya Mahasalaad oo ka mid ah xubnaha ugu culus mucaaradka kaas oo xildhibaanada buuqa sameeyay ay uga baaqayeen inay ka fogaadaan guddoonka gumeel gaarka ah hase yeeshee waxaa la sheegay in dharbaaxa ku dhacday iyo feer Mahasalaad ay wax gaarsiisay afkiisa isla markaana ilig wax gaarsiisay xogta la helayo ay muujinayso wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaan Kulanajiis oo ka tirsanaa baarlamaanka ku soo biiray uu u gacan qaadi rabay guddoonka gumeel gaarka ah ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhabancad oo isagoo dhanka mucaaradka markan la saftay waxa mucaaradka rabaana sameynaya inkastoo aynu helin caddeyn muujinaya Kulanajiis labadaas uu qaadi rabay Cabdishakuur Cali Mire iyo Kulanajiis ayaa ka soo horjeeday in maanta uu baarlamaanku ansixiyo jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka labadiisa aqal taas oo ugu dambeyn ku dhamaatay inaysan ku qanacsanayn waxa socday Villa Soomaaliya waxaa jira warar sheegaya in la doonayo in degdeg ah loogu doorto guddoonka labada aqal ee baarlamaanka oo ujeedaduna tahay in Fahad Yaasiin la dhaafiyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka taasi oo xildhibaanadana la sheegay inay doonayeen in ay ka hortagaan balse ugu dambeyntii baarlamaanka labadiisa aqal uu shaaciyay in doorashada ay dhacayso guddoonka doorashadiisa la dooran doono bishan 27keeda halka kan aqalka la dooran doono 26ka bishan dhinaciisa Ra'iisul Wasaare ayaa shaaca ka qaaday ujeedka laga lahaa weerarkii maanta lagu qaaday xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka socday kulankii wadajirka ahaa ee labada aqal ay yeesheen Roble ayaa qoraalka soo baxay xafiiskiisa waxaa lagu yiri Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu cambaareynaya falalka argagixisada ee la doonayay in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ujeedada weerarkii hoobiyaasha ku tilmaamay inuu ahaa mid fuleynimo ah oo lagu cabsi gelinayay baarlamaanka si loo cuuriyaamiyo dhamaystirka doorashada Soomaaliya dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ayaa bogaadiyay dadaalka baarlamaanka federaalka ah ee dhamaystirka doorashada guddoonka labada gole iyo jadwalkii la soo saaray maanta wararka soo baxaya xafiiska Roble ayaa ku soo beegmay xilli maanta labada gole ay yeesheen kulan wadajir ah kaas oo ay ku meel mariyeen jadwalka doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kahor kulanka ayaa waxaa jiray cabsi xoogan oo laga qabay in taageerayaasha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay foodayaan kulanka si dib loogu dhigo doorashada guddoonka labadiisa aqal waxaa jira warar sheegaya in la doonayo in degdeg ah lagu doorto guddoonka labada aqal iyadoo ujeedku yahay Fahad Yaasiin dhaafsiiyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka inkastoo aysan u muuqan mid suurtagal noqonaysa hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa laga fahmi karaa in eedda ujeediye ay tahay mid siyaasadeysan iyadoo aanu si toos ah cid gaar ah u magacaabin haddana waxay u muuqataa inuu garab siinayo xubnaha mucaaradka ah ee saaxiibadiisa taas oo mar kale ka dhigan in Roble iyo guddoonka gumeel gaarka ah ee labada aqal ee baarlamaanka isku milmeen Roble uu sameynayo sida uu doono in guddoomiyaashu ku cadaadinayo in la dejiyo doorashada guddoonka labadiisa aqal si Fahad Yaasiin haddii xataa kursigiisa la fasaxo uusan ugu guuleysan in uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo qorshahaas uu fashilmi doono 19ka bishan marka maxkamadda sare dalka ku dhawaaqdo in Fahad Yaasiin kursigiisa la fasaxay isla markaana aysan jirin cid ka hor imaan karta dhinaca kalena xildhibaan Cabdishakuur Warsame ayaa si rasmi ah cabsi u soo wajahday isagoo dalbaday in la wareejiyo kulamada baarlamaanka lagana soo wareejiyo Villa Hargeysa xildhibaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka mid ahaa xubnihii maanta xaadiray kulankii buuqa ka dhashay ee xarunta golaha shacabka Soomaaliya balse aan shaashadaha lagu arkin Masar Cabdishakuur ayaa sheegay in laba ka tirsan ilaaladiisa ay waxyeelo dhaawac soo gaartay madfac maanta ku dhacay afka hore ee xarunta golaha shacabka xildhibaan Cabdishakuur Warsame ayaa codsaday in doorashada guddoonka baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha lagu qabto teendhada Avizioni cabsi amni uu dareemay awgeed Cabdiraxmaan wuxuu yiri wuxuu alle maanta naga samata bixiyay hoobiye lagu garaacay xarunta golaha shacabka waxaa ku dhaawacmay dad badan oo ay laba ka mid ah ilaaladeyda gaarka ah yihiin
waxaana alle uga baryayaa caafimaad degdeg ah iyaga iyo inta kale dhaawacantay. hoobiyuhu u muuqan mid meel fog ka yimid wuxuuna qayb ka yahay qalqalgelinta amniga iyo isdayga dib loogu dhigayo doorashada Soomaaliya. hadda kadib waa in kulamada khudbadaha iyo doorashada guddoonka labada aqal ay ku xigeenadoodaba lagu qabtaa teendhada Afisiyoni si aan dib looga dhicin doorashada, ayuu yiri Cabdiraxmaan Ashkar Warsame oo muuqda marka inuu wajahayo qalqal amni oo weyn, dhaawac culusna uu soo gaaray ilaaladiisa midka ugu muhiimsanaa sida xogta la helay ay muujinayso. kulankii maanta ee baarlamaanka waxa uu noqday kan ugu hadaleynta badan ee maanta. waxa uu sidoo kale bannaan ku soo saaray nooca xildhibaanada ee kusoo biray golaha shacabka iyo sida uu ekaan doono sawirka iyo meeqaamku yeelan doono baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya, taasi oo ku muujinaysa in qof aan awood lahayn uusan waxba ka gelin golaha shacabka ee hadda jira iyo kan sare ee kan aqalka sare labadaba, taasoo ku muujinaysa in weli kudladii badbaado qaran iyo kudladii nisa ay hadda isku farsaarayaan gudaha baarlamaanka Soomaaliya, taasoo iyagoo markan xasaanadiisa tahay ay mar kale ku kulmeen xarunta sharci dejinta ee dalka. dagaalkoodana maanta bilow uu ahaa, balse wax kale ay dhiman yihiin. ugu dambeyntiina xildhibaan Cabdullaahi Faarax Mire oo kamid ah mudanayaasha Puntland laga soo doortay ayaa yiri labada isku day ee la damcay in lagu hakiyo geedi socodka doorashada dalka waxa ay kala yihiin bil cibaado ayaa lagu jiraa ee golayaasha fasax ee galeen. jawaabta marsiyahaasi waxa ay noqotay bishani waa bil shaqo iyo jihaad loogu heliyo xaqa. jihaadka ugu weyn ee xildhibaanada maanta horyaalana waa in la suurtageliyo dalka inay doorasho ka dhacdo. maantana doonitaanka xildhibaanada ee hawsha ku aadan ayaa hirgalay. doorasho inay dhacdo ayaana loo ballansan yahay, ayuu yiri xildhibaankan oo si kulul uga jawaabayay eedeymo culus oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada qaarkood oo dalbaday in dib loo dhigo doorashada guddoonka labada aqal baarlamaankana fasax la geliyo. hase yeeshee hadda waxaa muuqanaysa in gebi ahaan ay fashilmeen isagii filla Soomaaliya ay ku doonayeen